وسؤال تأويني ذلك يا إسكالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa Daalacan News Channel. daawadayaal meel kasta oo joogtiin waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. xubinteena waxaynu ku soo qaadanaynaa faalo wareed aynu halkudhig kaga dhignay yaa ka mas'uula siyaasadda calusan ee Soomaaliya sideese loogu gudbi karaa caqabadahaasi. laga bilaabo caasimadda dalkeena Muqdisho ilaa maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland waxaa ka aloosan caqabado siyaasadeed oo laga yaabo inuu ururkeeda saameyn ku yeesho geedi socodka deganaanshaha siyaasadda hisiga doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya. wada noocaasi ah ma ku ugubka dalkeena ay waxay qayb ka yihiin siyaasadeedka kala jihada ee dalkeena ku soo socdaal qaatay waxaana haatan muuqda khilaafyo hoosaadii u dhaxeeya dowladda federaalka iyo xisbiyada siyaasadda mucaaradka ee ay horboodayaan labada madaxweyne hore kuwaasi oo rumaysan inay dowladda federaalka iyagu si gaar ah u colaadinayaan waa sida hadalku dhigeen. madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh waxay safka hore kaga jiraan siyaasiyiinta mucaaradka ee hanka siyaasadeed kale inay mar kale ku soo baxaan madaxtinimada dalka ee doorashada dhici doonto sanadka 2021. xeeldheerayaasha ayaa rumaysan in khilaafka dowladda iyo madaxweynayaashii hore ay ka miisaan culus tahay khilaafka kale ee dowladda kala dhexeeya maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland balse dadka caadiga waxay rumaysan yihiin in khilaafyadu oo dhan yihiin kuwa isku mid ah oo caqabad ah. marka la qiimeeyo khilaafka dowladda federaalka iyo xisbiyada mucaaradka waxaa la qiri karaa inuu salka ku hayo loolan siyaasadeed oo ay labada dhinac ku muujinayaan cududooda ku aadan ololaha doorashada iyo masiirka dalka lagu hogaamin doono. dowladda federaalka waxay ku naaloonaysaa in mar kale ay dib ugu soo laabtaan ama ku guuleystaan doorasho soo socota iyagoo isku arka inay leeyihiin kartida asaasiga ee dib u doorashada ee xilka madaxtinimada. laakiin xisbiyada siyaasadda ee mucaaradka ayaa iyagana ku tallaamaya inay mar kale baruusi ka dhigtaan kursiga madaxweynenimada ee dhex qotoma villa Soomaaliya sida siyaasiyiin badan indhaha ku hayaan si ay mar uun u baruusi dhigtaan markii la gaaro doorashada madaxtinimada ee soo socota. waa hubaal in labada dhinac gacansaar la leeyihiin dowlado ay ka filayaan taageerada xilliga doorashada iyo dowladda federaalka la sheego in loo xagliyo inay dowladaha Qatar iyo Turkiga ee jaalka koowaad yihiin ay kaga gudbi doonaan ololaha doorashada madaxtinimada soo socota. sidoo kale madaxweynayaashii hore iyo xisbiyada mucaaradka waa hubaal inay iyaguna dowlado kale gacansaar la leeyihiin iyadoo la hadalhayo in dowlada ay Sacuudiga Imaaraad ka mid yihiin ay la kaashan doorashada madaxtinimada ee soo socota. xeeldheerayaasha falaaqay siyaasadda waxa ay iyaguna hoosta ka xariiqeen inaan weli la gaarin xilliga kala guurka saaxiibada siyaasadda lagana yaabo inay labada dhinac u sii kala jabaan garabyo kursi doon ah ileen siyaasad kasta ama siyaasi kasta oo xil sare ka ah dowladda federaalka waxaa u qarsoon qorshahooda xilliga doorashada taasi oo keeni karta inay ugu yaraan musharaxiin ka badan 3 qof kasoo dhex dhashaan dowladda federaalka iyo xisbiyada siyaasadda. waxaa kaloo suurtagal ah in qaar kamid ah siyaasiyiinta ku aragtay xisbiyada mucaaradka u soo goostaan dowladda federaalka ee nabad iyo nolol astaanta u ah iyadoo dhanka kale la filan karo inay siyaasiyiin haatan la jaanqaadayo dowladda federaalka ay iyagana usoo diga rogtaan xisbiyada mucaaradka iyagoo eeganaya danahooda. siyaasiyiinta haatan iska dhigaya dhexdhexaadka ayaa iyagana laga yaabaa inay labada saf mid uun soo raacaan oo ay noqoto xaaladu dadkaaga dhinac karaac ileen siyaasadda malaha saaxiib joogta waxay leedahay dano joogta waxaan laga yaabaa siyaasiyiinta dhexdhexaadka inay ku hayaan wili sahmin halka ay dantooda ku jirto. si kastaba ha ahaatee digurgooshada siyaasiyiinta labada dhinac ayaa la dareemi doonaa marka loo sii dhawaado xilliga doorashada iyadoo dowladda federaalka haatan u muuqato inay kasbatay ugu yaraan 2 maamul goboleed kuwaasoo kale Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed halka labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland ay mucaarad mutaxan ku yihiin dowladda federaalka ee nabad iyo nolol lagana yaabay in labadaasi gole maamul ama dowlad goboleedaasi ay iyaguna ay la saftaan dhinaca kale xisbiyada mucaaradka markii la gaaro doorashada. daawadayaal xubinteena faalada ahayd waa naginta waana ku mahadsan daawashadiina. Somalida,
سريرارا تهوسنا رديبا تهورنا رورا جدا بنا ريبا تهريرنا ريحا